qiso jaceyl oo murugo badan. Adduunyadu waa imtixaan, waa dhibaato iyo murugo badan tahay. Dadku iska si uma wajahdo, waxayna qof waliba ku qaabishaa waji gooni ah. Qaar baa farxad iyo reereen ku qaata waqtigooda inta badan, halka ay kuwa badan la nool yihiin murugo iyo ciir iyo ulkutaal carra aan dhammaad lahayn. Qisadaani waa qiso dhib ah oo ka dhacday Soomaaliya, qaas ahaan gobolada dhexe ee Soomaaliya. Waana qiso aad u xanuun badan aan ugu magacdaray leen jaceyl waa loo dhintaa. Haddaba daawadow si fiican u dhuux qisadani xanuunka badan iyo sida ay wax u dhaceen. Axmed Yare wuxuu ka mid ahaa ardayda wax ka barata dugsiga Alcimra ee magaalada Beledweyne, waxaana maalin maalmaha ka mid ah ay isbarteen gabar lagu magacaabo Suleeqa oo iyadana ka mid ahayd gabdhaha wax ka barta isla dugsiga, isla markaana dhigatay fasalka ama galaaska ka hooseeya. Suleeqa iyo Axmed barashadoodii kadib waxa uu dhex maray jaceyl xad dhaaf ah oo midba midka kale u qaaday ilaa iyo dhammaan laga ogaado iskuulka, macallimiintana ay ka war helaan xanta jaceylka lamaanaha. Waxaana ay noqdeen kuwa iyaga si gooni ah isku tixgeliya, markastana wada jecel in ay waqti isla qaataan. Waxaana caashaqu midba midka kale uu qabo uu gaaray in haddii ay isla joogin la iska maqlo taleefanka. Nin adduunya joogo maxaa aragti ku laaban. Axmed iyo Suleeqa waqtigoodii aasaaska jaceylkooda wuxuu ahaa waqti mid u hiiliya iska dhaafee in xitaa ay dhibaato arkaan. saacadna iskuma dhaafin inay ismuquusadaan oo ay murmaan. waayaha adduunyada kulley waa cibaare cadceedda bidhaantiyo waxay cayn ku noqotaaye. lamaanahani waqtigooda hore iskula jecel xididada mutay oo axdiyo aaminaadna ay lagu hiinsimay. muddo 3 sano ah kadib maxaa dhacay? waxaa la isla meel dhigtay in geedkii jaceylka ee muddada badan la waraabinayay laama ubax lahna soo baxsaday in mirihiisa la gurto. Axmed Yare iyo Suleeqa ayaa isku afgartay in ay reer wada noqdaan oo ay qura wada galaan. waxaana Axmed uu Suleeqa ka codsaday in ay fursad siiso si uu waalidkiisu u wargeliyo, isagoo islahaa waa bishaaro cusub. hase yeeshee Suleeqa waa ay ka aqbashay. laakiin maxaa dhacay? Axmed Yare iyo hooyadii maxaa dhex maray? Axmed oo ahaa agoon aabihii geeriyooday isla markaana ahaa kan ugu weyn ama curadka reerka, wuxuu aaminsanaa in haddii ay hooyadii uu u sheego arrinta ay tahay mid ay ku farxayso laguna taageeri doono. Axmed Yare wuxuu u yimid hoygii uu ka degnaa xaafadda Kooshin ee magaalada Beledweyne, wuxuuna durbadii uu bilaabay in uu la faqo hooyadii uu arrintii u bandhigo. hooyo Sareedo oo ahayd maamada Axmed ayaa u sheegtay in arrinkaasi uu yahay mid wanaagsan haddii uuba rabo in uu guursado, iyaduna ay jeceshahay, laakiin ay hore ugu doontay Nasro oo ay habaryartiis dhashay, isla markaana ay Suleeqa isku fasal yihiin, laakiin se aysan u sheegin. hore Axmed ayaa durba bilaabay in uu ku cataabo hooyadii kana codsaday in ay iska hilmaamto Nasro ee ay ku taageerto jaceylkiisa uu rabo in uu la aqal galo. ninba waayihiisa waalo loo tumaa, laba kala barisay kala warla. hooyo Siraad ayaa u sheegtay wiilkeedii Axmed in loo taliyo uu qaato talada waalidkiisa, marna aysan Nasro mooyee qof kale uusan nolosha la qaybsan doonin. Axmed wixii habeenkaasi kadib waxaa u bilaabday jabi murugo iyo fakar ku dhisan. habeenkii maladin ilaa waaga soo guduuto, waxa uuna Suleeqa u sheegay in arrintii ay waalidkiisa kaga gacan sarreeyeen, waxaana isku calaacal kadib la isla meel dhigay in aan la kala maarmin oo aan nafta la isku hurayo. Axmed ayaa taleefanka ku wacay Nasro uuna sheegay waxa taagan, bal xaggeeda si uu ciirsi uga helo. hase yeeshee waxay u sheegtay inay hore u diiday, laakiin duciyo habaar la hordhigay oo ay arrintu tahay laba daran mid dooro. ninkii dan leh ma daalo. Axmed Yare waxa uu mar kale ku soo noqday hooyadii Siraad uu inta uu garka iyo jilbaha qabsaday ka codsaday mar kale taageero jaceylkiisa ah. laakiin maama Siraad waxay Axmed u sheegtay in maalinta biri ah ma haysaa dambe uu aqal galayo. warkii hore war soo dhaaf. Axmed waxaa mar kale u baryay waa cusub, waxa uuna hooyadii u sheegay in aysan dhici karin uu dunida ka tagayo haddii aan arrintiisa loo meel dhigin. hooyo Siraad ayaa intay dhoolla caddaysay ku tiri waa lagu taliyaa, adiga ma talisid. waad ujeedaa daawade arrinta ku cakiran Axmed Yare. haddii aad fikir iyo talo heeso qaybta faallooyinka noo soo dhig. talo waa tii alla taadana waa loo baahan yahay. haddii aa qiso tan lacayna heeso ama mid u dhigmata noogu soo dir qaybta aan ku leenahay baraha bulshada ee Instagramka iyo WhatsAppka. aad descriptionka ka daalaca kartaan. mahadsanidin.